shirkaddan waxaa la asaasay sanadii 2011 xilligaas oo dawladdii ku-meel gaarka ee madaxweyne Sheekh Shariif iyo ganacsatadii waddanka xilligaas isku tageen la go'aansaday in kaydkii hore ee shidaalka Soomaaliya dib loo nooleeyo. kambaniyadii xilligaas shaqeynayay ayaa waxay la baxeen magaca Somali Fuel Company waxaa isla markiiba la bilaabay dhismaheeda. dadka awal waxay ku dhibanaayeen shidaal lagu keenayo fuustooyin. caqabadaha ugu weyn oo xilligaas markii aan shaqada bilaabeynay waxay ahayd inta badan baabuurta waxay u qaribmayeen ama matoorada shirkadaha xilligaas bixinaya korontada shidaal wasaqaysan oo aan nadiif ahayn oo tayadiisa aad u liidata. runtii markii kambanigan uu yimid waxaa meeshaas ka baxay caqabadihii shirkadaha ay qabeen sida shirkadaha korontada, shirkadaha gaadiidka. waxaa ballaartay fursadihii shaqo haddii ahaan lahayd dadka ka shaqeeya keenista iyo gedista baabuurta. ganacsigii oo aad u ballaartay. maanta kambanigan waxaa ka shaqeeyo dad Soomaaliyeed oo ay u abuurtay halkii shaqo abuur u noqdeen oo gaaraya dad 200 oo qof oo Soomaali ah. muddadii dambe waxaa jiray inuu suuqa gaaska cuntada lagu kariyo uu aad u soo batay. isaga naftigiisa muddadii aan wadnay shidaalka energy-ga naftada iyo bisiinka jadka uu ku garab socday. waxaad dareemaysiin maanta magaalada waxay u guurtay apartments, maqaayadaha, hoteelada aad u soo bateen. baahidii marka oo aan muddadaas aan wadnay waxaa jirtay annaga waxaan ku keeni jirnay xilligaas wax la yiraahdo ISO tanks. halkii ISO tank lacagta aad ku soo bixinaysa ayaa waxa ka qaban transportation-ka. mararka qaar waxaa dhici jirtay xilliga badxiranka oo kale in ay daahdo suuqa uu ka tago qiimo aan macquul ahayn ilaa 40 mararka qaar 50. waxaa dhacda marka in la fakaro la yiraahdo war sideen baahidan uga bixi karnaa. waxaa ka dhalatay marka in la dhiso kayd u gaar ah gaaska. qorshaha intuu socday markaas shirkadda Somali Fuel Company waxay sameysay oo shirkad kale oo la yiraahdo oo iyada ay leedahay ka hoos dhalatay la yiraahdo Banaadir Gas. markii la dhisay kambanigaas waxaa dhacday marka in laga maarmay ama laga kaaftoomay baahidii ahayd maraakiibta badeecada in la soo saaro oo lala soo saaro. waxaa suuqa maanta u maraya in lagu gato kg-ga $1. haanta marka oo 13 kg ah waxay ku dhalatay in marka $13 tusaale ahaan lagu gato. waxaa ka abuurma asaga naftigiisa kambaniyo yar oo retailers ah inay ku dhiiradaan oo ay gadaan ayagu ka faa'iideysanayo. annagoo ah shirkadaha Somali Fuel Company iyo Banaadir Gas waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb galno bandhigga guuleystayaasha Soomaaliyeed oo ah sanadkiisii afaraad. sanadkan qaasatan oo quseeyo waxa annaga aan ka shaqeyno ah energy sector-ka.